qaybtii labaad ee Journey to Fame wadadii caanimada ee qodxaha lahayd. qaybtii koowaad waxaan kaga soo hadlay tusaaleyn aan ka bixinayo soo gelitaankaygii Toronto iyo qaabkan ku bilaabay comedy-ga iyo sidaan fanka u soo galay. magaalada Toronto oo ahayd magaaladii ugu saxmadda iyo ugu dadka badnayd Soomaalida Canada degan, waxay u baahan tahay adkaysigeeday u baahan tahay markaad soo dhex gasho saxmadda fanka iyo saaxadda music industry-ga Soomaalida markaad soo gasho waxay u baahan tahay adkaysigeeda iyo kartideeda iyo firfircoonideeda u baahan tahay. magaalada waxaa yimid oo marti ku ah markaa Nasteexa Indho iyo DJ Subeer oo wada socda. DJ Subeer sidaan hore idinku sheegayna waxaa asaguna yimid oo marti ku ah Iskalaaji oo ay showga la qaban qaabinayaan Cawaale Aadan iyo Cabdullaahi Boqol. DJ Subeer waa og yahay, Nasteexana waa og tahay. waxaan ka hadlayo waa true history. waa wax xaqiiq ah oo biyo kaba dhibcaana oo aan qof dafiri karaa jirin, wax walbana caddayntoodii halkan baan idinkula wadaagayaa. Iskalaaji iyo Nasteexo waxaa ka dhaxeeyay dagaal ayaga u soo horeeyay, annagu aanan war u hayn. isku habeen bay showga dhigteen, keeduna wuxuu ka dhacayay Ottawa, kiisuna wuxuu ka dhacayay Toronto, habeenka ku xigana wuxuu ka dhacayay keedu Toronto. waxaa magaalada jooga oo fanaaniin markii laga soo tago fanka ku lug lahaa Jay Arsenal nin la yiraahdo oo promoter ahaa, magaalada uu joogaa. Jay Arsenal waa nin dhalinyaro ah oo la wada garanayo oo Soomaaliyeed oo promoter u ah fanaaniinta Soomaaliyeed cidii imaanaysa oo ku cusub. kuwa magaalada joogana intii ay saaxiibtinimo iyo wax wada cun ay wada leeyihiin ay wada shaqeeyaan. Nasteexa Indho showgeedii aniga oo comedian ah waxaa igu soo daray Jay Arsenal. sidaasna waxaan ugu biiray teamkii DJ Subeer iyo Nasteexa Indho oo barashar badan uu ka haysto teamkii kale oo Iskalaaji watay Cawaale iyo Boqol oo showga ayaguna lahaa. Nasteexa Indho showgeedii baan anigu waxaan ku noqday fanaan. heeskii ugu horeysay oo aan noloshayda qaado waxaan ka qaaday showgii Nasteexa Indho iyo DJ Subeer ay dhigayeen, markhaatina ayagaa ka ah. heeskii ugu horeeyay aan qaaday wuxuu ahaa indhaha aragaaga doona, Liibaan Jaamac baa iga duubay. YouTube-ka Liibaan Jaamac bayna ku jirtaa. halkaas markaan heeskii ku soo bandhigay isagoo bilaa muuqaal oo video la'aana, Liibaan Jaamac dib buu ka duubi doonaa. iyo hees kale asaguna flop noqday, Nasteexa Indho waa huleeshay iyo DJ Subeer waa laabteen si sharaf leh. magaaladii waxaa isugu soo haray fanaaniintii hore u joogtay iyo Iskalaaji oo ku cusub oo marti ah. markaas waxaa music industry-ga Soomaalida duuba codka vocal recording ninka la yiraahdo Liibaan Jaamac iyo Iskalaaji. Liibaan Jaamac marka waxaa u dheer waa cameraman YouTuber ah, heesaha asaga duuba oo bartiisa laga daawadaa. iyo niman kale oo dhalinyaro oo la yiraahdo Tusmo Films, Cabdiqani iyo Cabdullaahi King, halkaan ka salaamaya. aniga iyo Iskalaaji markii ugu horeysayba waan isqoonsanay, waxaan isku qoonsanay wax walba waxaa fiican in xaqiiqdooda la taabtee suuqa ma jeerteen. Iskalaaji ma ogolayn fanaan kale oo ma jeerteen la ah oo ilaa wuxuu ku awrkacsanayay waxay ahaayeen ma jeerteennimo in uu saxmadda iyo suuqan la soo galo. targetkiisu wuxuu ahaa inuu ka takhaluso Cawaale Aadan iyo ninka la yiraahdo Cabdullaahi Boqol iyo cid allaaliya cidii uu isleeyahay madaxay kor u soo qaadaysaa. fankuna kooxaysi iyo influence iyo groupaysi kama maarmo. anigu markaan arkay Iskalaaji inuu geeska geliyay waxaan la saftay Cawaale Aadan iyo Cabdullaahi Boqol oo showgiisii ka bacdi ay isku soo dhaceen oo iskaleen. Cawaale Aadan iyo anagu oo saaxiib ah waxaa magaalada yimid Xabad nin la yiraahdo. Xabad showgii loo dhigayay baan waxaan isku jirnay Cawaale
anuna reer mudug aan ahay cid walba oo cadaalad darro iyo dulan bilowdana waan isjiiraynay cawaale wuxuu takriful ku sameeyay walaalkiisa xabad anuguna waxaan la saftay xabad oo waxaan ku iri laguma samayn kara xabad waa marti wax lagu samayn kara male aniga iyo cawaalana saasan isku galnay cawaale iyo aniga markaanu isgalnay cawaale wuxuu iska dhaadhiciyay Omar waxa kugu soo riday oo kugu soo halgaaday iskalaajina ima soo halgaadin aniguna waxaana nin halgamaya oo fanka soo galay iskalaajina nin wadankan ku cusub oo markii magaalada la keenayay anagu ku soo dhaweynay oo asagoo Donald Trump iyo ka soo cararay kiiskii Umar Shooli iyo waagi la xirayay ragii la raadsanayay ku jiray oo halkaan yimid oo aanu u ballaqnay albaabada asna nin halgamayo oo magaalada inuu la wareego rabah buu ahaa Cabdullaahi Boqolna nin halgamayo waligiis soo halgamayay buu ahaa aduu nin kasta halgankiisu u socday cawaale aadan iyo anigu waan isqoonsana markaan cawaale isqoonsanayno waxaan ahay fanaan Soomaaliyeed comedian waxaan qaaday heeskii barbar oo hal week adduunkaba ku jirta oo saaxadda fanka ku jirta oo 1 milyan ay hal week ku daawatay ummadii Ilaahay oo dhanna ay istuurayso oo la yaaban yahay meel ay wax ka socdaan cawaali anigu markaan isqabanay fiidiyoyadii aan isku wada duuduubnay iyo hawada waxaan isku marinay deewaan idil wadaagay halkaan idin kula wadaagay waxa taa kaaga sii daran walaalkay xabad wadankan xabad asagoo marti ku ah oo Afrika ka yimid wuxuu ku soo dagay cawaale aadan fanaaniintii magaalada joogtay oo dhan Canada waa uu ogolaan waayay waana uu ka qariyay Edmonton buu show ugu qabtay anigu showgaas waan u raacay xabad tigidkayga anaa u goostay u tagay si aan u garab istaago cawaale aadan xabad showgii markuu u qabtay lacagtii buu kala soo tagay wax kale oo tara iska daayay Edmonton buu uga soo tagay xabad maanta Edmonton buu joogaa cawaalana lacagtii buu kala soo tagay dib dambana uma uu salaamin ugumana uu noqon markaan intaas oo dhan isku soo duuduubo waxa laaliyo wuxuu khalad dhalinyarada ka galay oo dhan aan isku soo dardaro waxaan fanaaniinta Soomaaliyeed oo dhan kula dardaarmaya fanaankii mustaqbal raba oo doonaya in uu fanaan Soomaaliyeed oo mustaqbalkiisu ifaya noqdo in uusan cawaale aadan aysan dhex marin wax la xana wax heesta iyo wax fan ku saabsan waxa jirta hadda hees uu soo wado cawaale oo anigu leeyahay anigu hees aan leeyahay waxa kale oo jirta hees ay soo wadaan Sakiyare iyo Raxmed Roos oo cawaale iyo Aamin Afriik ay hadda wada qaadi rabaan Aamin Afriik waa gabar walaashay may oga waxa meeshan ka socda hadal waxaan ku soo gunaanadayaa cawaale aadan aniga taad igu samaysay maanta kama xumi maanta anigu kama xumi laakiin midda aan ka xumahay waxay tahay maadaama aad iyaantan magacaaga la maqal oo aad isleedahay magacaagu ha soo muuqdo ama dib ha u soo noqdo haddii aad sidan magac ku helaysid oo aad sidan door biday waxa weeye haddii sidan magac ku yeelo foolxumada ah anigu runta kama gabado mana baqo haddaad khalad iga gashid anuu awoodo hadda intaan Ottawa kugu imaaday inaan dharbaaxa kala daalo waa waxaan door biday inaan ummadda Soomaaliyeed horta ku ogeysiiyo dhalinyarada Toronto joogta ama Canada joogta ee fanaaniinta ma hor istaagi kartid adigu way soo baxayaan indhahaagu shan bilood ay socotaan ha socotay ee wadankan Canada aan waxaan mid 2010 maantana waxa la joogaa 2018 waa 8 sanadood 8 sanadood waxaan dadkan ugu imiday fanaaniin caan ah oo ummad Soomaaliyeed ku caan si sharaf leh soo dhaweeyeen si sharaf leh ugu dhex jiraa si sharaf leh wuxuu wada shaqeynayay si sharaf leh wada dhaqmayay dibdan Canada kama jirin dibdan Canada kama jirin buuq ma lahayn wadan degan buu ahaa fanaaniintu saaxiibiyihiin walaalayihiin aad isku ixtiraamaan bas virus baan soo galay ay ila garan doonaan dadka Mareykanka degan Minneapolis bas si fiican ila yaqaan virus farxun baan soo galay video aan adakaysana video ku talagal loo duubay waxa shakadu ka soo bilaabantay cawaale Soomaali ma
أدور كي يصير في عمود جيست عوار الصومالي ما أحبط الدجال كبوريا وشنب